dad badan ayaa isweydiiya waxay leeyihiin marka aan ku cusbaa guurka aad baan u dareemi jiray raaxo macaan badan laakiin hadda aad uma dareemo. waxay u maleeyaan xaaska inay isbedeshay marka ay da-da yareed inay ka fiicneed hadda. sidoo kale naagta iyada way isla yaabaysaa muddo kadib marka ay dareento inaysan si fiican ugu raaxaysanin. bal nimanka qaarkood waxay raadiyaan naag kale inay guursadaan si ay uga helaan raaxo siyaado ah. qaar baa garoobada burbuuran raadsado oo da-da yar wuxuu isleeyahay kuwaas ayaa baahidaada buuxin kara. laakiin waxaad ogaataa galmada marka ay raaxada leedahay waa marka aad muddo muugnaato oo biyahaaga ay bataan. tusaale ahaan 5 maalmood ama 7 way ka duwan tahay marka aad jimaaca samaynayso habeen kasta. haddii aad badsato oo maalin kasta aad samayso waxaa laga yaabaa sheekada oo dhan inay isu bedesho daal iyo dhidid iyo aalamiinto keliya oo raaxada dhan ay kaa tagto. markaas waxaad u malaynaysaa gabadha inay isbedeshay ama ay foolxumo soo wareertay. dad badan way u maleeyaan inay xaasaskooda u dhammaatay oo ay weynaadeen oo aysan ka helin raaxada sariirta. waxaan kuu sheegayaa galmada raaxadeeda waxay ku jirtaa inaad u xiisto oo jirkaaga biyo bax fiican uu ka helo. ma aha inaad iska keento aadan u baahnayn, taas raaxo kuma jirto. bal waxaa dhici karta in bahalkaaga dama adoo shaqada aw wada markaas aad u malaysa inay kuu dhammaatay. meesha ayaa shaki kaaga bilaabanaya. waxaa gaaraysaa heer aad ninnimadaada ka shakisa oo aad isdhahdo maxaa igu dhacay markii hore waan fiicnaa sidee wax u jiraan. bahalkayga waa daciifay sida la rabay uma taagmo. waxaa laga yaabaa ragga qaar inay eeda saaraan dumarka siiba kuwa fircooniga u gudan oo jirkooda aan dadka soo jiidanin. aad bay muhiim u tahay inaad galmada waqti munaasib ah u yeesho. raaxada naagaha yaryar iyo kuwa waaweyn adiga ayay kugu xiran tahay. arrintan waxay u eg tahay marka ay gaajo daran ku hayso cuntada aad bay kuula macaan tahay maxaa yeelay muddo ayaad nuugnaatay. laakiin marka aad darkan tahay cuntada fiican xitaa ma cuni kartid waayo waad buuxdaa caloosha. cunto ayaa ku jirta. dhalinyarada maalin walba siigaysta uma siigaystaan raaxo keliya, caado ayay u noqotay. qofka wixii ku bata kuma raaxaysto. wax kasta ha iska badinin.